Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya cutubyo ka tirsan ciidamada militariga Itoobiya oo saakay faarujiyay qaybo ka mid ah saldhigyadii ay ku lahaayeen gobolka Gado. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya ciidamadaasi halka ay u soo ruqaansadeen, balse wararka intooda badan ayaa waxa ay sheegayaan in militariga Itoobiya oo wata gaadiidka dagaalka ay u soo ruqaansadeen dhanka iyo magaalada Kismaayo oo caasimad meel gaar u ah maamulka Jubbaland. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan in qaybo ka mid ah deegaanada gobolka Gado hawada ay ka saareen militariga Itoobiya qadka isgaarsiinta, taasi oo shacabka ku qasabtay inaysan helin xogta dhaqdhaqaaqa ciidamadaasi. Dhanka kale waxaa aad loo adkeeyay ammaanka magaalada caasimadda u ah maamulka Jubbaland ee Kismaayo, taasi oo lagu arkayo qaybaha kala duwan ama xaafadaha magaaladaasi ciidamo aad u tiro badan oo ka kala tirsan Jubbaland iyo kuwa militariga Kenya. Sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa magaalada ka soconayay loolanka u dhaxeeya saraakiisha shisheeye ee Kenya iyo Itoobiya, kuwaasi oo ku loolamayay doorashada madaxtinimo ee maamulka Jubbaland. Sidoo kale waxa ay xurguf u dhaxaysay saraakiisha ciidamada Itoobiya iyo Kenya ee gudaha magaaladaasi ku sugan, kuwaasi oo isku maandhaafay diyaarad la sheegay in agab ciidan ay u waday militariga Itoobiya oo lagu qasbay in dib ay ugu laabato halkii ay ka soo kici tantay. Wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in ciidamada Itoobiya ay u soo jihaysteen dhanka iyo Kismaayo, balse lama oga halka ay wax ku dambeyn doonaan.